wardegdeg ah Jenaraal Jimcaale oo dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya ay u magacowday taliyaha qaybta 54 maalmihii ugu dambeeyay inuu ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo maalmo ka hor gaaray magaalada Garowe ayaa halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan kuwaas oo la sheegay inuu markaasi ku muujinayo awoodiisa. Waxaan kula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa ciidan ee Jenaraal Jimcaale oo halkaasi ka bilowday iyo sidoo kale booqasho maalinkii labaad uu ku tagay xerada ciidankiisa ay ku sugan yihiin duulaadka magaalada Garowe lagu magacaabo xerada Ligle. Soo dhawaada muuqaalka like oo ka mid noqon saaxiibada halkan ku xiran ee markasta aynu kula wadaagno wararkii warbixinada guud ahaan Soomaalida iyo sidoo kale caalamka. Xagaaga Jenaraal Jimcaale horey u ahaa taliyaha ciidanka danab ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland isla markaana dhawaan dowladda federaalka Soomaaliya u magacowday taliyaha qaybta 54 ee deegaanada dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu dhawaan kaasi gaaray magaalada Garowe xarunta maamulkaasi xilli uu maalmo ku xayirnaa magaalada Laascaanood ee xarunta waqooyi bari oo maamulka Puntland gabi ahaanba u diidanaa in Jimcaale uu soo galo deegaanada maamulkaasi maadaama ay u aragtay in caqabad ku ah amniga iyo sidoo kale deganaanshiyaha dowlad goboleedka Puntland isla markaana fulinaya awaamiir iyo sidoo kale howlo dowladda federaalka Soomaaliya ay wadmatay. Jenaraal Jimcaale oo heshiis iyo sidoo kale dhexdhexaadin maalmo qaadatay la gaaray Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa ugu dambeyn waxa uu habeenna ka hor gaaray magaalada Garowe. Kadib markii uu gaaray Garowe, Jimcaale ayaa halkaasi ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyada oo maanta ilaa iyo shalay magaalada Garowe duleedkeeda lagu arkayay ciidanka Jimcaale oo halkaasi dhaqdhaqaaqyo aad u xoogan ka wada, waxaana tallaabadan lagu sheegay mid Jimcaale uu ku muujinayo awoodiisa. Maamulka Puntland ee uu hogaamiyo Saciid Cabdullaahi Dani saraakiil markaasi ilaamaha ammaanka ayaa Jimcaale uga digay in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee duleedka magaalada Garowe uu ka wado ay tahay kuwa khalkhal ku abuuraya amniga iyo sidoo kale bulshada guud ahaanba, waxaana loogu baaqay in ciidankiisa ay ku ekaadaan xerooyinka. Jimcaale ayaa shalay ilaa iyo maanta waxa uu markaasi booqasho ku tagay xerada Ligle isagoo halkaasi kula kulmay ciidanka iyo saraakiisha danab kuwaas oo si toos ah markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda federaalka Soomaaliya ugu mishar qaadanayay. Jimcaale ayaa sida xogaha aynu ku helayno waxa uu ciidanka la wadaagay inay isdiyaariyaan isla markaana heegan sare ay galaan suuragalna ay tahay in saacad kasta Saciid Cabdullaahi Dani iyo sidoo kale ciidankiisa ay weerar ku soo qaadaan loogana baahan yahay ciidanka danab inay mar walba ahaadaan kuwa feejigan oo u diyaarsan ka hortagga weerar kasta oo gardarro ah oo Saciid Cabdullaahi Dani iyo ciidankiisa ammaanka ay ku soo qaadaan sida hadalka uu dhigay. Xoga markaasi aynu ka helnay ila ka agdhow Jenaraal Jimcaale waxay sheegeen in Jimcaale gabi ahaanba uu ka baxay heshiisyo uu Saciid Cabdullaahi Dani la gaaray intii Laascaanood uu ku sugnaa, taasoo u suuragelisay in magaalada Garowe uu soo galo, waxaana ka mid ahayd marka uu yimaado Garowe inuu iska casilayay xilka qaybta 54 lana kulmayo madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Laakiin hadda Jimcaale dhammaan ballanqaadyadii uu horey u sameeyay uu gabi ahaanba daaqada ka saaray isla markaana waqti xaadirkan isimadii dhaqan iyo siyaasiyiintii gobolka Nugaal ka soo jeeday ee iyagu markaasi damaanad qaaday in Jenaraal Jimcaale uu iska casili doono xilka qaybta 54 ay ku mashquulsan yihiin sidii Jimcaale ballanqaadkii uu sameeyay uu u fulin lahaa isla markaana uu la kulmi lahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani. Guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada Jimcaale uu wadayo sidoo kale xiisadda iyo cabsida ka taagan magaalada Garowe oo ku aadan inay isku dhacaan ciidanka danab ee Jimcaale iyo ciidamada ammaanka ee dowlad goboleedka Puntland. Warbixinada xiga ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like saar aragtidaada qaybta faallada ee commentiga ku dhiibo.